نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبد برة وزير كالدلينيرada iyo isboortiga xildhibaan maxamed barre xildhibaanada labada gole gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha martida aan u nahay ee degmadiisa aan joogno Zainab Xaabside dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii galabta mudan ra'iisul wasaare wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo gobolka Banaadir dhalinyaradiisa oo iskaashanayo waxay fadhiyaan hortaada ayagoo kuu muujinayo inay diyaar u yihiin ay ka jawaabaan dhawaqiini ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ama guud ahaan xukuumadda dan qaran oo ahaa in uu bilowday xilligii la iska dulqaadi lahaa cadawgii argagixisada ee muddada dhowr iyo 10 sano ah dalkayna soo daashaday dhib aan yarayna u geystay dhallaankayni Soomaaliyeed. waxaa farxadii ah mudan ra'iisul wasaare dhalinyaradan maanta maas u maxira wejigooda iyo afkoodaba qariyo ma hayaan waxay ku tusayeen ka cabsaan inaysan jirin marka dhalinyarada waxaa la yiraahdaa waa umudu faqriya waa udub dhaxaadkii ama xoogii maaragtay ummad xoogeedii waaye dhalinyaradu magaca ay wataan nimankaas odayaasha ah waa magaciinay wataan oo shabaab marka tiraahdo waa kelmad carabi ah waa dhalinyaradii ayay wataan magaciinay wataan waxa dadka lagu dilaayo lagu haligayo lagu qarxinayo lagu baabi'inayo haweenkii iyo ilmihii dadka beeraleydii lagu soo barakicinayo oo masaakiinta lagu waxyeelaynayo waa magacii dhalinyarada waaye marka ma u dul qaadanaynaa in magacayna saas loo baabi'iyo yeeli mayno maxaa yeelay wasiirku waa dhalinyaro ra'iisul wasaaruhu waa dhalinyaro anigu dhalinyaraan ahay waa aragtay marka dhalinyaraan nahay marka dhalinyaradaana waa inaan difaacnaa jiritaankayna saad la wada socotiinba mushkilada taagan shacabku iskama kicin 5 sano ayaa dadkaani lagu dulhaayay aan xaggooda maalinna loo dhaqaaqin shabaabka xaggiisa aan la aadin in dib in la xoreeyo ama la iska dhixiyo 5 sanay kobceenay koreen markaasay dadkii diloodeen markaasay waxay noqotay inay xoogeystaan ay noqotay laakiin dadkii hurdadii waa ka kaceen maanta shacabkiina ku jihaysan dawladdiina shacabkiisa bood garaynaysaa marka shacabkii xukuumadda hadda shacabkii horeeyo marka fursad waayo fursadaas waxaan leenahay yaan la dayicin aad looga faa'iideystaan leenahay mudane ra'iisul wasaare shacabki maadaama uu kacay waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa maanta nabadoono meelaha gambado ambo meelaha u dalaal tago maaragtay la sheegi jiray maanta nabadoonkii ugu horeeyay soo qorashita ku dhintay waxaan leenahay ilaahay anaga sabar siiyo jannatul firdaws Allah geeyaan leenahay maxaa yeelay waxaad ogaateen qof kasta ajashiisa ku dhimanaya إلهي وحور لكل أمة أجل قفك استأجل وليه آيات لو حليدا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نفي هذا وقت قالت ماذا لما تبدأ وين من يسا حديث كان وحوى من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد مركا وحان لنا هاي قفك استوى نفسي الدفاع عنها يا ضد انت شهيد انت أكذب وعن ربنا صوك وقت قال اسكرايو magaalada Muqdisho howlaha ka socdo howlaha ka socdana waa howlaha looga hortagayo nabadiidka magaalada ku soo baqday ee ku soo jabay saad la wada socotiin bayadaha amniga habeenadan oo galayayeen waxay soo qabteen dad badan ayay soo qabteen guriyahooda ugu tageen waxaan leenahay marka dadka guriyaha ka kiraysanaya shabaab
ama guryahooda maaragtay ku magan gelinayo ha ka foojignaadaano looma dul qaadan doono haddii ilaa yidhaahdo gurigii qof shabaaba laga soo qabtana aragti kalaa laga qaadan doonaa marka guryaha waxaan leenahay ka ilaashada ayaan leenahay dadka magaalada muqdisho degan sidaas si la mid ah dhallinyarada haweenka odayaasha annagoo iskaashanayno haddii aan aragno shabaabka aan soo sheegno raadinno oo soo bixinno maxaa yeele waa dhilqa ku cunaayo jeebka kugu jiro ama barkintaad hoosteeda ku jirana ma fiirsan kartid marka dhilqaha aan iska soo saarno waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu